Waa maxay dawarsi qallalan, caadada sunta ah ee khiyaanada leh ee si aamusnaan ah u waxyeelayn karta xidhiidhkaaga. Inta badan waxaa la yiraahdaa isgaarsiintu waa furaha xiriir kasta oo guulaysta, waana sax. Marka laga reebo wada xiriir cad, furfuran, daacad ah oo wax ku ool ah, xidhiidhku waxa kale oo uu ku horumaraa daacadnimo niyadeed iyo ixtiraam labada dhinac ah. Marka la hawlgalayaasha ay si cad u sheegaan baahidooda, xiriirku wuu sii xoogaysanayaa, halka dhanka kale ay sidoo kale run tahay. Marka isgaarsiintu uu noqdo mid aan toos ahayn, oo baahiyaha lagu muujiyo dembi ama tilmaamo, waxay dhaawici kartaa xiriirkaaga oo aan la hagaajin karin waqti kadib. Dhaqankan sunta ah ee daasoon waxaa loo yaqaan dawarsi qallalan, qaab ay daaweeyayaashu aad uga walaacsan yihiin. Waa maxay tuugsiga qallalan? Dawarsi qallalan waxaa laga yaabaa inay u ekaato erey internet oo qallafsan, laakiin waxay tilmaamaysaa wax in badan oo naga mid ah ay la kulmeen anagoon ogayn. Inkasta oo aan si rasmi ah loo aqoonsan buugaagta cilmi nafsiga, weli, ereyga ayaa bilaabay inuu helo caan ah, gaar ahaan internetka iyo fadhiyada daaweynta. Waxaa caan ku ah la taliyaha ug ee Darren Magee, tuugsiga qallalan waxaa loola jeedaa habka isgaadhsiinta ee aan caadiga ahayn ee gardarrada ah, halkaas oo qofku isku dayo inuu helo waxa uu rabo isaga oo aan si toos ah u weydiin. Taa badalkeeda, waxay adeegsadaan khalkhalgelinta shucuureed, safarro dambiyo khiyaano ah, ama hadallo aan toos ahayn oo qofka kale ka dhigaya inuu ku khasbo inuu sameeyo. Maxay u eg tahay? Bal qiyaastan, lamaanahaagu wuxuu dhex socdaa qolka oo uu ku dhahaa, waxaan qiyaasayaa inaan mar kale samayn doono dhammaan suxuunta, ama dadka intooda badan waxay qadarinayaan waxa aan ku sameeyo halkan. Dusha sare, faallooyinkani waxay u ekaan karaan kuwo aan waxyeello lahayn xataa wax yar. Laakiin haddii ay marar badan soo noqnoqdaan oo ay la socdaan calaamado shucuureed sida niyad jab ama xanaaq, waxay bilaabi karaan inay xirtaan xiriirka. Sida laga soo xigtay Magee, dawarsi qallafsan waa wax walba oo ku saabsan isticmaalka cadaadiska dareenka halkii erayo daacad ah. Waxay ku shaqaysaa iyada oo ka faa'iidaysanaysa calaamadaha bulshada iyo calaamadaha shucuureed halkii ay ka samayn lahayd codsiyo toos ah, ayuu sheegay Ed. Si kale haddii loo dhigo, halkii aad ka odhan lahayd, ma iga caawin kartaa wax badan shaqada guriga. Waa maxay sababta tuugsiga qallalan uu uga dhib badan yahay sida ay u muuqato? Laakiin waqti kadib, saamaynteedu way kori kartaa. Hobe Kelleher oo ah daaweeyaha ayaa ka digaya in marka la hawlgalayaasha ay si joogta ah u isticmaalaan xeeladahan, ay si aan ula kac ahayn u dhisaan gidaar u dhexeeya iyaga iyo kuwa kale ee muhiimka ah. Waxa ku bilaabma isgaarsiin yar oo isgaarsiineed ayaa u rogi kara khalkhal shucuureed, xanaaq iyo luminta kalsoonida. Dhab ahaantii, dadka qaarkii xitaa ma ogaadaan inay ku hawlan yihiin dawarsi qallalan. Waxaa laga yaabaa inay dhibsadaan inay si toos ah u weydiiyaan waxa ay u baahan yihiin, ama waxaa laga yaabaa inay caado ka barteen xidhiidho hore ama dhaqdhaqaaq qoys. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii aan ula kac ahayn, pulayska shucuureed ayaa weli ku dhacaya lamaanaha helaya, kaas oo ku dhammaanaya inuu dareemo cadaadis, eedayn ama niyad jabsan. Dhibaatada shucuureed ee dawarsiga qallalan ee dawarsiga ma aha oo kaliya in wada xiriirku jahawareeriyo, waxay si qoto dheer u saamayn kartaa wanaagga shucuureed ee xiriirka. Marka mid ka mid ah lamaanuhu uu dareemo inay si joogto ah u akhriyaan inta u dhaxaysa xadadka ama qiyaasaan waxa qofka kale rabo, badbaadada shucuureed ayaa meesha ka baxaysa. Natiijadu, hal qof ayaa qaadaya culayska shucuureed halka kan kalena uu iska ilaalinayo nuglaansho la'aan. Dawarsiga qallalan waa dabeecad la bartay, waana mid aan la baran karin. Waxay ka bilaabataa aqoonsiga qaabka iyo xulashada wada xiriir daacad ah, oo ka beddelan soo jeedinta shucuureed. Isbeddelkan yar ee sida aad u hadasho waxay abuuri kartaa farqi weyn xiriirkaaga lamaanahaaga. Nuglaanta waxaa laga yaabaa inay marka hore dareento wax laga xumaado, laakiin waxay dhistaa kalsooni, caddayn iyo isu dhowaansho shucuureed, waxyaalaha uu u baahan yahay xidhiidh kasta oo caafimaad qaba. Dayactirka xiriirka, ka fogow khaladaadkan isgaarsiinta ee caanka ah.